magaalada Boorama xalay fiidkii ka daay roob laxaad leh kaasi oo sababay khasaare kooban oo hantiyeed. Kani ayaa daayay muddo ku siman hal saaca. Maayarka degmada Boorama ayaa waxa uu saaka kormeero kala duwan ku soo maray goobihii ay khasaaruhu ka soo gaadheen kii ka daay magaalada Boorama habeenkii xalay. intaas kadib maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay tirada khasaaraha uu geystay roobkaasi waxaana uu yiri maqlayseen Hargeysa dhibaatooyin badan buu gaarsiiyay haddana waa nimcad Ilaahayna siiyay waa wax Ilaahay lagu shukriyo Boorama xalay roob fiican baa ka daay dhibaato muu geysan runtii dabayl iyo wuxuu lahaa dhagxaan baraf daadanaya laakiin wax dhibaato ah oo dad ah ama oo dhimasho ama geysan laakiin guriyo dumay iyo way jireen iyo dhaqaale aw burburiyay qashkana waxaan leenahay eedin may baa lagu jiraa magaaladii baa la nadiifinayaa xilli roob baa la galay lama doonayo qashin meelaha yaala in la arko mas'uuliyadiina hadda gudan weydaan waa la idinka wareejinaya hadda idinku celinayna labada shirkadood bariyahan gaabis badan baa ku jira iidihiina nagu soo dhow yihiin oo kulay wax isugu badanaya roobabkii baa jira qashinkii oo dhan baa yaa wadoonka yaala xilligan roobkana xanuunaa ka dhasha waa waxyaabaha la doonayo inaad ka hawl gashaan dadkan waxaan leenahay goobaha qashinka loogu talagalay ha keenaan goorta loogu talagalayna ha soo dhigaan midna waxa weeyaan shirkadaha hadday leer tahay iyo hadday tahay isgaarsiinta biitooyada waa in la adkeeyo xarkahana la kala fogeeyo goob aan ku haboonayna in la geeyo ma xarkaha biitooyada wadooyinka aan banayno anaga ku nidhaah laga fogeey taas waa qodobka labaad waxa xarkahan isku duubmay ee tashka bixinaya marka dabashu timaado taana waxaan leeyahay walaalayaal ha laga hawl galo iyaguna meesha aan doonaynaa shirkadaha guryaha dhisa wadooyinkii way cidhiidhiyeen dhulkii drainage-ka loogu talagalay way cidhiidhiyeen dadka gaar ahaan dadka laamiyada ku soo jeeda waxaad arkaysaa dantii bulshada wuxuu ka horeysiinaya qofkii dantii gaarka ahayd kamid ah dadweynaha ku dhaqan mid kamid ah xaafadaha ku yaala Boorama ayaa cabasho ka muujiyay maamulka dawladda hoose ee Boorama kuwaasi oo ku eedeeyay goobihii ay biyuhu mari jireen in ay dad gaar ah u xidheen kuwaasi oo sababay in biyahaasina ay soo galaan guryahooga biyaha way arkayaan iyo wadooyinka xidhan taasoo biyaha dib badan nagu hayaan taasoo wadooyinkii kolkore dawladdu furtay imka shicibku xidhay marka shicibku xidheen xoog isticmaaleen anaga cid wax nooran kartaa ma jirteen markaas wadooyinka nagu la xidhan wayniga arkay dadku sidoo noo qaadayo marka dawladda iyada nagu shicibka waxaan ka codsananaa in dawladda badadkiisa la siiyo ilaahay baana nimcada keena waana darkaysin ardayda inaga qaadaan fiibay noo soo doonaan dhiirda aan dhexnaan liya galaalka ubadku ku gurmayaan waa darkaysin taa waxa naga dareynaa in bashada dadka noo sakhre marka daadadkii la isku wala keeno ee waxa wada la soo xidhay anagu dib nagu haya inta barakaatu waxaan nidhi walaal dadkiina TV-ga duubayo waxaan la codsanaynaa in dawladda marka hore ballan qaaday ee jidka furtay maanta ay jidkii naga furtay biyihii waa la wada ceshay islaan walba warkeeda way xidhatay marka waxa la rabaa in jidkana loo furo inta kale oo intaas codsanaynaa anagu xoogna wala isticmaalay walba la rusbo bixiyay dawladda qaatan dawladda laftarkeedu taas ku dar wada fadeexad waliba fadeexadeen dawladda la rus qaatay hana laga daayo ilaahay inta ka baqaan dadka dharaajaya bas salaam alaykum warahmatullahi anagoo biyo si kolkii horeba biyo ay wadooyin naga sameystaan oo aqalada hoostooda loo marayaan oo aqaladu lagu kabiceen iyo haddana muul baa biyaha lagu soo weeciyaan naga dhigtay oo roobkii raxadii ilaahay lisay biyaheegiiba halkan inoo soo wada mariyay kolka dawladdu hadday wax qabanayso waxqabadkeega aragno geesta kale maayarka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo wax ka weydiinay cabashadaasi ayaa waxa uu ku jawaabay wala caban oo biyuhu wataan ka hadlaynaa khatarteeda laga taxdiraan leenahay biyuhuna miisaan bay lahaayeen drainage-da magaalada iyo ismeelahayn roobka da'ay waayo 30 minutes wax ka yar ayaa roob miisaan li ku da'ay way imanaysaa oo qofka gurigiisa biyo galeen wuu imanaya laakiin taasi deeto shacbi iyo laga cabanaya maaha xukuumad laga cabanaya ama mas'uuliin laga cabanaya waa nimcad Ilaahay keenay oo nusqaamaha ay leedahay bay kamid tahay wixii waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV magaalada Boorama.